kan baxaya belelinaaye waa baayadooda kuwii ka bayre bahdo salaxde boqonta gooyay waa baaba'ooda maanta meeshaan oo ka bilaabayno solar light-kii degmada Cadaadad la siiyay waxaan u mahadcelinayaa wasaaradaha nagala soo qayb galay wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliya wasaaradda arrimaha gudaha dawladda federaalka wasaaradda arrimaha gudaha dawladda Galmudug nagala jooga mudana wasiirkii wasaaradda macdanta iyo tamarta nagala jooga agaasimihii guud dhammaan mas'uuliyiinta kale oo ka soo qayb gashay shaqaalaha ka socda nis dhammaantiin waxaan leeyahay waa mahadsantihiin sidaan wada ogsoonahay qaybtan maanta aanu dhagax dhignay waa 30 xabo 30kaas xabo waxaa la kala saaray 3 jid oo ku yaala degmada Cadaado oo jidadka Jayga ah waxaan wada ogsoonahay 75 xabo hore loo saaray laamiga saaran yihiin sida looga faa'iideystay waxay la ka sheekaymayno magaalada heerkii markii hore ay joogi jirtay waxaan ogsoonahay mar kasta oo aan baalayaalka magaaladaas aan saarno leerka aan saarno 5 casho gudahooda naga wada guba jiray haddana 2 sano bar ka hor la saaray la taagay dhammaantood habeenkii waa wada daaran yihiin waa aragteen ummadii waa ku ganacsanaysaa dadkii danyarta oo habeenkii waa ku hoos ganacsadaan dadkii ama ciyaalka ama meelahaas laga baqay in habeenkii wax tuuriyaan waxama kuma tuuriye karaan waa meeshii wada leer amniga waa ka qayb qaatay dhinac kasta barnaamijkaasi ummadda wuu ka anfacay sidaas daraadeed haddana codsi kale ayaan dirsanay heer degmanaga ah wasaaradda arrimaha gudaha Galmudug ayaanu ku wajahnay wasaaraduna wasaaradaha ka sareeya dawladda federaalka sida arrimaha gudaha iyo qorsheynta xafiiska ra'iisul wasaaraha dhammaantood barnaamijkaas waxay nagala qayb qaateen waan uga mahadcelinaynaa waxaan sidoo kale uga mahadcelinaynaa xildhibaan arrintan asaguna nagala qayb qaato deegaanka ka soo jeedo xildhibaan Afdoon asagana mar kasta waan xusaynaa arrintan uu nagala qayb qaatay dib badan oo aan ka marnay dadkii oo nagala qayb qaato ahaa wasaaradaha nagala soo dhameeyay dokumentiyada nagala soo dhameeyay marka waxaan leenahay dadweynahana hadde waxaan leeyahay ilaashada ma dhahayo oo way ilaashadeen dadweynaha reer Cadaado laakiin waxa laga rabaa in dayactirkooda iyo ka shaqayntooda iyo ka warqabkooda iyo hadii mid shaqaf dabayl ka tuurto sidii hore ay u soo sheegi jireen sidoo kale ay u soo sheegaan inay ilaashadaan sida arkaysaan degmadan waxa laga hirgeliyay 75 solar oo hore ilaa hadda taagan waa yartahay degmooyin ilaa hadda ka shaqeynaya caasimadda waa arkaysaan qaarkood waa la siibtaa macabirta la baxay iska daa solarka iyo baterigaas marka waxaan Cadaado ugu mahadcelinaynaa sida idinka degmada Cadaado jooga waxaan ugu mahadcelinaynaa sida ay solarkooda u ilaaliyeen dawladnimadu ma ahan maamulka degmada kaliya dawladnimadu waa shacabka waxa meeshan ilaaliyay waa shacabkii waxa ma kala rabaa in ilaashadaan waa shacabka lagama yaabo mana sugaysaan in mataqaanaa dawladda shay inta idin yimaadaan boorkeeda kaga jafaan in idin ilaaliyaan waxa ilaashanaya waa idinka waxaan leeyahay dadweynaha Cadaado waxaan si toos ugu sheegayaa in ilaashadaan si hore u ilaashan jireen intaana ilaaliyaan insha Allah dawladda Soomaaliya waa ka jawaabay inta hadda dhiman oo sheeganaysan in ka badanba dawladda Soomaaliya waa soo gaarsiinay deegaanada dhan adinkuna deegaanada ka mid tihiin assalaamu calaykum wa rahmatullahi